musharax madaxweyne ee jagada madaxweynenimo tartami doona xisbiga mucaaradka wadani ayaa hadda garabkayga midig taagan oo saaka cod bixinta goobaha kala duwan looga dareeray dareenhaan saaka dareenkaagu waa sidee dareenkaygu waa dareen farxadeed muwaadin baan ahay ka qayb qaatay codaynta jamhuuriyadda Soomaaliland doorashada madaxtooyada oo gutay xaqii uu siiyay dastuurku ma ku faraxsantay ilaa hadda si u socdaan goobaha cod bixinta doorashada waa goobtii ugu horeysay imaado maanta halkani laakiin warbixinaha waan ka dhageystay dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland goobo ilaa hadda Hargeysa gudaheeda iyo gobollada kale way jiraan aan bilaabmin oo leeyahay waxba ka maqan ama shaabad baa maqan ama farsamo ahaan baan bilaabmin waxaan rajaynayaa goobahaas inay bilaabmaan waxa dhibo inta ka weyn ilaa hadda lama soo sheegin aad baad u mahadsantahay musharax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaan u dirayaa shacbiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan ku hambalyeeynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Eero waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay anigoo muwaadin ah codaynta doorashada oo hadda soo codeeyay khadkii aan ku codeeyayna waa ka fartayda ka muuqda waxaan u rajaynayaa shacbiga Soomaaliland inay si nabadgelyo iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhiganay ciidanka ammaankana la shaqaynaya inay si nabadgelyo ku codayno waxaan shacbiga leeyahay nabad ku codeeya muwaadin kasta xisbigu doonaha u codeeyo waxaan ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha Allah waxaan rajaynayaa inay guul inoogu dhamaato waxaan aad u rajo weynahay in doorashadani magac weyn u keento Soomaaliland inay noqoto doorashadii ictiraafka Soomaaliland haddii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan shacbiga saxaafaddana waa mahadsantahay waa fiican yahay dadka kiyuga taagan markaan arkay iyo nidaamka u socdo barnaamijka qurata waxa weeye dadkii baa degdegsan oo qofka badooyin inuu footeeyo codeeyo oo iyaga isqasiya laakiin nidaamka wax loo dooranaya aad buu fiicantay la dhigay waan aad iyo aad baan qolada commissionka aan u amaanaya dadka markaan ag marayna waxay u eekaayeen dad nabadgelyeynaya musuqmaasuqii in raagiyay sicir bararkii inagu raftay qabyaaladii caafimaad la'aantii biyo la'aantii ixtiraaf la'aantii maxaa la'aantii wax kasta la'aantii maanta ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala doorashada ku dhamaanaysaa xaqaa soo degiya dulmigii baa suuliya dulmigii inaga suuliya Soomaaliland waa cusub oo bariya insha Allah ta'ala haday kitaabka ilaahay sunnaha qaataan haddii kale gobolkooda uu sii dhacaya taas ay muuqato insha Allah ta'ala waa hagaag waxaan ka bedeli doonaa wax badan insha Allah dalkoo dhan wax baan ka bedelayaa institutionka dhisiyaa doorashooyinka xeer baan u sameeyaa hadii Ilaahay yiraaho sharci baa laga tagay sharcan soo saaraya sharci insha Allah ta'ala wadan aan lahayn umad aan sharci ku awmeen oo constitutionka aan ilaalinin uma noqon mayso awalan law and order baan soo saaraya haddaan law and order jini stability ma jirto nabadgelyo ma jirto waxaan la dagaalamnay jahliga waxa maanta Soomaaliya haya waa cilmi darro waa jahli waxaan soo saarnay adduunka nidaamka adduunka ka socda kii wanaagsan ee Umar bin Khattab aan soo saarnay radiyallahu anhu Ilaahay nafta noo daayo waa hagaag si ilaa hadda u socoto gudoomiye say kula muuqataa ilaa hadda alxamdulillah rabbil caalamiin anu markasta waxaan dadka wanaagis ka taliya Ilaahay waxaan ka baryayaa in wax kasta inoo hagaagsanaan magaca aynu maanta ku helno doorashada campaign-ki inaan doorashada ku helno Ilaahayna soo saarnay professor Abiyan dalka aan ka saarno dhuuqada ku jiro musuq ku jiro qabyaalada ku jiro waxaan aan siyaasiyiinta hore dhan aan fadhiisanaa doon insha Allah ta'ala wasiiradii hore in yar baan kala soo hadlayaa inta kale dhan waan fadhiisanayaa reerahooda haruurka la cunay aad u mahadsantahay musharaxa madaxweyne ayuu kaasi daawadayaal bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle ilaaha maanta dalkeena nabad qab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaaha intaaba ina siiyay baa mahadle ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu wanaagga inoogu dhameeyo nabadda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa noqoto doorasho khayr leh oo dalka hore u maraysa oo wanaag noo horseeda aan inaba wax turxaan ay loo keenin ilaahay baan taa ka baryaynaa
maanta anigu dadka waxaan la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxda dalka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygu wanaagsan yahay dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxaan ku hambalyaynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kal laheen dhallinyarada shaqaynaysa waan hambalyaynayaa da'da yar ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa qolada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u aabulan oo si wadannimo u shaqaynaysa iyagana waa mahadnaqaya soo koob Soomaaliland way soo wada mahadnaqaysaa ilaahayna wanaag bay ka doonaysaa insha Allah waxaanu dooran doonaa madaxweyne cusub saddex murashaxabaas ayaa jooga kii soo baxa waa hambalyeynaa anna waxaan isleeyahay dhammaan codka u badan waad heli doontaa intiina waxaan ka rajaynayaa inay codaysaan waraaqad yar ii turtaan intiina taagan ma yaridine kuway maqlayeen waxaan leeyahay codka igu roonaada haddii alla yidhaahdo dalkuna nabad buu ahaanaya warwarna ma jiro ragga sharaxanina waa rag wada odayaala dalka danaynaya aan loo baqaynin aad iyo aad baa u mahadsantihiin